booliska dalka Ingiriiska ayaa waxay shaaciyeen magaca nin Soomaaliya loo haystay dilkii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska. Ninkani oo magaciisa lagu sheegay Cali Xarbi Cali ayaa la rumaysan yahay in uusan ku jirin liiska dadka ay diiradda ku haysay hay'adda sirdoonka Ingiriiska MI5ta. waxaana sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in ninkani loo xiray tuhunka ah in uu dilay xildhibaan David Ames oo horay uga qayb galay barnaamij dowladda UK ay fulisay oo looga hortagay jirnimada ama argagixisada. Cali Xarbi Cali oo 25 jir ah oo haysta dhalashada Ingiriiska balse asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa lagu xiray goobtii lagu tuureeyay xildhibaanka. booliska ayaa sabtidii baaray 2 guri oo ku yaala aaga London, isla markaana ma jiro qof kale oo ay iminka ku raad joogaan booliska ayaa weerarkii dhacay asagase iminka ku baaraya sidii dhacdo argagixiso ah laga yaabo inay la xiriirto xagjirnimada islaamiyiinta. dhanka kale waxaa socda barordiiq loo sameynayo xildhibaankan la dilay iyadoo shumacyo la dhigayo halka uu weerarku ka dhacay si loo xasuusto noloshii Sir David. wuxuu ninkani ku xiran yahay iminka saldhigga booliska Essex, halkaas oo ay su'aalo ku weydiinayaan waaxda booliska ee kahortaga argagixisada. wariyaha BBC-da u qaabilsan amniga Frank ayaa sheegaya in saraakiisha Whitehall ay sheegayaan in ninkani la xiray uusan ku jirin liiska dadka looga shakisan yahay arrimaha argagixisada. heerka feejignaanta UK ayaa waxa weyn iska bedelay tani jamciyada, taasoo la macno ah in weerar argagixiso la filan karo. 69 jirkani David Ames ayaa waxa uu ifka ugu tagay 4 gabdhood iyo wiil. waa xildhibaankii labaad ee la dilo sanadihii la soo dhaafay kadib dilkii Joe Cox oo ka tirsanayd xisbiga shaqaalaha, taasi oo la dilay bishii July 2006. wasiirka arrimaha gudaha Patel ayaa waxay sheegtay in xildhibaanada loo sameyn doono security ama amnigooda la sugi doono.